مدحوينها جمهورية فدرالية صوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو واسمها رئيس الوزراء مدن مالي محمد بوليد مدحوينها بونتلاند مدن سعيد عبد الله الدني مدحوينها جبلان مدن أحمد محمد إسلام مدحوينها كوفر قلبين مدن عبد العزيز حسن محمد مدحوينها إيشابيل مدن محمد عبد الوارث قدوميها قبل كبرادر عمر محمد محمود عمر فلش قولها وزيرة حكومة فدرالية صوماليا حلبانة فدرالكا لبدا قولة دولة حكومة دولة فدرالكا ururada bulshada reerka siyaasiyiinta dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda bahda saxaafadda fanaaniinta ciidamada qalabka sida intaan xusay iyo intaan xusin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa madaxdii sharafta badnayd soo wada shaqeynay oo hawshii qaranka u taagnay ka soo wada shaqeynay sida habsamida iyo tanaasulka iyo xurmada badan leh hawshaas aan u soo wada qayb qaadanay inaan idhaahdo waa mahadsantihiin sidaad mas-uuliyaddii soomaaliya iga sugaysay waktigan weliba sida gaarka isha loogu hayay ee kala guurka ah xilliga doorashada سأل تحكيسين مقدرين سيدا نسول دوري آدي بان لبها الألمي مدحة شرفتها وعن سكان لبها الألمي مدحويناها دولة فدرالية صوماليا قضيتي مسؤوليتي اسكوحينتي إيه نداكي وكبحي إنكو أعمار نحرقنا أو دورجل وكرو لقاطو runtii waxaa la wada muujiyey isu tanaasul dulqaad iyo mas-uuliyaddii oo siday ahayd loo gutay oo wax badan oo u baahnaa in la xeeliyey madaxweynuhuna uu oday noogu ahaa oo uu ku hogaaminayay waxay ahayd waqti muhiim u ah qaranka waxay ahayd waqti la soo gaaray ama lagu soo dhowaaday doorashadii taasoo ay tahay 4 sano mar inay doorasho dhacdo oo u lahayd ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba miisaan iyo macno weyn oo inay sidaas u sahlan si sahlan la isu afkarto go'aan midab laga qaato ayadoo aan Soomaalida cidina ku dhex jirin cidina wax kala leeyin cidina kala dab qaadin ay hawsha dhamaystaan mas'uuliyad weyn oo ummadda Soomaaliyeed sharaf u ah ayay ahayd marar badan ama waqtiyo yar ayaan marar badan dhihi kala duwanaansho ama mararka qaar oo aragtida loo kala duwanaaday way jirtay hase yeeshee cid lagu soo baxdana ma jirto cid isla jiidana ma jirto waxaan isku qancinay si walaalnimada ka turjumaysa mas-uuliyadda iyo hawsha noo taala waxaan rabaa inaan hortiina u mahadceliyo mararka qaar madaxaan kala duwanaanay saaxiibaday madaxweynaha puntland siciid cabdullaahi deni iyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo odayeyn iyo markaan isu nimid muujiyey tanasul waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dowladda iyo shacabka reer galmudug goglihii sharafta badnaa ee 1 iyo 2 iyo 3 ay ummadda Soomaaliyeed u yeedhay gobolahaas
runtii waqti loo baahnaa ku soo beegmay waqti Soomaalidu ay isha ku haysa ku soo aaday ayaguna ay ka soo baxeen mas'uuliyad ay saareen oo ay isu saareen baahida waqtiga loo qabo in Soomaalidu isu timaado waxaan leeyahay meelaad joogtaan shacab iyo dowladda waa mahadsantihiin afkayga ku ammaanayo afka madaxdooda ma ku ammaanaya waxaan rabaa sidoo kale inaan mahad celiyo maamulka iyo shacabweynaha gobolka Banaadir siday noo soo dhaweeyeen oo sharafta badnayd oo ay madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka u soo dhaweeyeen waxaan leeyahay waa mahadsantihiin weliba hawshu waa maqan tahay waa mas'uuliyad weli iska saaran gobolka Banaadir sidii wixii la qabay ama la tursanaa ama mararka qaar lagu gartami jiray halkaasay ku soo dhammaadeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba gaar ahaan qayb kasta oo danaynaysa qaabka doorashada waan jeclay inaan doorasho u galno ama dalku doorasho u galo doorasho la daadajiyey baahsan qof iyo cod laakiin duruuftu saamay weysay sidaa darteed waxaan rabaa sidaan u xeerinay wax badan sidaan u fiirinay wax badan dhinacyada oo dhan ay noola qaataan nala xeeriyaan si doorasho loo aado oo aan u galno doorasho la isugu dulqaato wixii dhaliilo ama meelaha qaar laga tabanayay sida qodobka ahbasho kale oo ahaa maxaa doorasho qofkii codol loo geli waayey in la isugu dulqaato taasna waa codsan lahaa dhammaan Soomaalida oo dhan gaar ahaan qaybaha sida gaarka muhiimka ugu ah ugu dambeyn waxaan rabaa inaan mahad celiyo saaxiibadeena beesha caalamka si guudna Soomaalida u garab taagnaa si gaarana arrimaha doorashada runtii mar walba jeclaa mana garab taagnaa inaan arrimahan ay ku dhamaysano sida hadda ay u dhacday oo kale waxaan leeyahay beesha caalamka taageeradiina waa ku mahadsantihiin